أنا فرحان محمد يوسف كان سو جيدا قبل كسلم waxaan rabaa in maanta aan la wadaago saxaafadda in aan shaaciyo in aan dib ugu soo laabtay xisbigeygii wadani oo anigu hore uga tirsanaa waxaan ahaa gudoomiye xisbiga gobolka Salel ee wadani waa ilaahay mahadi alxamdulillah waxaan muddo 4 sanadood xukuumadda Muuse talada dalka hayo aan ka fadhiistay siyaasadda maanta waxa igu dhaliyay in aan dib ugu soo noqdo xisbigii wadani duruufo iyo xaalado adag oo dalka uga simanahay anaka ka gobolka Salelna waxa noo dheer kadib markaan arkay in xukuumaddii kulmiye ay noqotay xukuumad fadhida oo bilaa wax qabada oo Hargeysa soo dhaafi weyday soona kari weydayna inay gobolada Soomaaliland oo dhan ay gaarsiiso oo ay fidiso maamulkeega kadib markaan arkay xukuumadda madaxweyne Muuse hogaamiyo uu ku fashilmay in ay wax ka qabato adeega bulshada ee gobolka Salel adeegaas oo aad iyo aad u liita haday tahay caafimaad xumida ka jirta gobolka Salel haday tahay tayo xumida waxbarashada haday tahay dayactir laanta ceelasha biyaha ee gobolka Salel ku yaala dhamaan dib u dhaca ka muuqda gobolka Salel iyo wada xumida ka jirta gobolka Salel kadib markaan arkay in xukuumaddii Muuse bixi ay ruqsado soo bixisay lagu xaalufinayo deegaanka haday tahay khayraadka badda iyo haday tahay khayraadka bariga ruqsadaha waxay soo siisay shirkado madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse bixi isku hebihiin kadib markaan arkay in xukuumaddii kulmiye haddii ay tahay dhinaca saami qaybsiga xilalka qaranka ee dhinac ka rartay gobolka Salel kadib markaan arkay in xukuumaddii kulmiye ay waxba dib ugu soo celin weydi dakhliga ka soo xarooda 4 kastan ee gobolka Salel ku yaala afarta kastan ay ku yaala gobolka Salel dakhli wuxuu ugu fadhiyaa halboolo aad iyo aad weyn buu qaranka ugu fadhiyaa dakhliga ka soo baxa afarta kastan ee gobolka Salel waxba yaraatay dib loogu soo celiyo si wax loogu qabto deegaankaas ama gobolkaas ma jirto sidoo kale xukuumadda kulmiye waxay go'aansatay in ay qadiso mashaariicda horumarineed sida sanduuqa SDF inay gobolka wax ka soo gaarsiiso sidaa darteed waxaan ku boorinayaa shacabka ku nool gobolka Salel inay taageero buuxda la garab istaagaan xisbiga isbeddeldoonka ee wadani ee hormuudka ka yahay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan qabaa in xisbiga wadani maanta yahay xisbiga keliyata ee soo celin kara rajadii iyo mustaqbalkii shacabka Soomaaliland ee xisbiga kulmiye godka dheer ku riday waxaan qabaa inuu maanta yahay xisbiga wadani xisbiga Soomaaliland oo dhan shacabka Soomaaliland oo dhan ay ka wada muuqdaan xisbiga maanta keliyata og ka war haya duruufaha iyo xaaladaha adag ee maanta ku nool shacabka Soomaaliland waxaan qabaa inuu yahay xisbiga wadani midnimada Soomaaliland iyo wadajirka Soomaaliland iyo isku haynta Soomaaliland xisbiga keliyata maanta ku howl jira sidoo isku hayn lahaa shacabkiisa Soomaaliland ugu dambeyntii waxaan leeyahay ha ku habsaamina xukuumaddan Muuse bixi waqtigiina inuu dhigaga lumin
shacabkii Somaliland iyo dadkii siyaasiyiintii Somaliland bay ka hayaameen marka gobolku inuu nigu dhicin hadoo la ilaaho insha Allah waxaan rajeynayaa oo nu rajeynayaa xisbiga wadani guul waxaan rajeynayaa barwaaqo iyo xisbi lagu waara oo Somaliland oo dhan anfaca hadoo la ilaaho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus